السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند والba xilligan hadda aynu ku jirno oo bilowga sanadka inta badan waxaanu dejisanaa ahdaaf iyo goolal iyo yool qof waliba rabay inuu gaadho hase haatee kama midho dhalino sidii loo rabayna uma gaadhno carqalado badan iyo dhibaatooyin inta badan inaga hor imaada qaar inaga imaatay qaar deegaanka ka imaatay intaba muuqaalkan isaga waxaan kula wadaagi doonaa arrimo dhowr ah oo carqalada ku noqon kara marka doonayso inaad qorsheyso sanadka cusub si kala toon u dhigo sanadkan cusub qorshihiisa bilaabin ilaa arrimahan aad ka adkaato oo aad xalliso taasoo wanaagsan. Assalaamu calaykum waxaan ku rajaynayaa wanaagsantii meel kastoo daafaha dunida ka joogto waxaan kugu soo dhaweynayaa channelkan ama page-ka hadda iga daawanaysid waana ii sharaf in page-kan haddaad ku cusub tahay aad ku xidhnaato channelkan haddaad ku cusub tahayna aad subscribe-ka taabato intaa markaan ka imaado muuqaalkan isaga waxaan kula wadaagi doonaa carqalada dhowr ah oo qofku markuu rabo inuu wax qorsheysto inta badan ka hadlayna ka aan qorshaha iyo arrimaha aan u aaba yeelin laakiin qofka inta badan jecel inuu wax qorsheysto waxaana uu ka midho dhaliyo carqalada kugu iman kara ayaan kula wadaagi doonaa sida aad uga badin lahayd haddii la yiraahdo ee ka faa'iideysi wanaagsan waa carqalada koobaad waxaa loo yaqaanaa jooji ahdaafta iyo yoolalka faraha badan leh markuu sanadku bilaabmo xamaasad bay haysaa waxaad doonaysaa inaad wax walba gebi walba tiidho waxaad doonaysaa inaad wax walba qabato arrintaas inta badan ma suurto gasho marka waa marka ugu horeysa waxaad iska ilaalisaa in wax walba aad jeclaato inaad ka midho dhaliso midhiya 2 iyo 3 mooyaane inta faraha badan la qoranaysid ogtayna inaad xaqiijinaysid iska jooji hadaf 2 3 ku badan baa kugu filan kuwa ka midho dhali sanadka dambe hadduu alla ku gaarsiiyana inta in la ka midho dhali intaas ay guul runtii tusaale ahaan kale qofku wuxuu jecel yahay inuu gym-ka ku biiro wuxuu jecel yahay inuu naadi ku badeed ku biiro wuxuu jecel yahay inuu akhriska farabadiyo wuxuu jecel intaas xirfado inuu barto waxaasoo dhan ku hirgeli maayaan marka midhiya 2 xoogay awoodda saar kuwa markaad ka midho dhalisana sanadka dambe hadduu alla ku gaarsiiyo kuwa kale gudub kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad runtii kaba sii muhiimsan aan kula wadaago markaynu ku jirno socdaalka nololeed iyo wixii aynu qorsheysanay sidii aynu ka midho dhalin lahayn inta badan waxay nagu dhacdan inaynu xoogay awoodda saarno halkaynu ku soconno tusaale ahaan kale haddaad doonayso inaad noqotid qof akhriska ku wanaagsan waxaad sawiranaysaa adiga dad cabdi tay ama gabartay xaliimo kale xaliimo ama cabdi oo boqol buug akhriyay oo gurigiisu maktabadiisu bedelay yani waxaad ku fikiraysaa hadafka dambe ee fog taasina waxay keentaa markaa inay carqalad ku keento xaaladda hadda taagan tahay yani si kale haddana soo dhaweeyo nin aan 3 page aan akhriyi karin oo fadhiisan karin way ku adagtay inuu 3 buug ama 10 buug sanadka u dhameeyo haddii aanad hal orod ama 10 mitir aanad ordi karin ugu adagtay inaad buuraha fanato sportsman aad noqoto sidaa awgeed xalku wuxuu noqonayaa xoogii awoodda saar processka jidka intaad ku jirto yacni ku raaxayso haddaad akhriska doonayso inaad xoogii awoodda aad saarto maalin walba 2 beejood ku raaxaysata ayaa ku dhanta 10 beejood xoogii awoodda saarto inaad akhrido marka intaad jidka ku jirto ku raaxayso intaad jidka ku jirto si macaan hawshaada u qabo waxba xoogii awoodda saaran natiijada dambe marka taasina waxay keensanaysaa inaanad hore u niyad jabin way kala duwan yihiin qof maalin walba 2 page akhriyaya iyo qof sawiranaya inuu sanadkan 30 buug u akhriyo runtii culayska maskaxeed saaran way kala badnaanayaan marka xooga saar processka shaqada maalinlaha aad qabanaysid xooga saarin oo ka fikirin hadafka weyn ee rabto inaad xaqiijiso insha Allah ta'ala qodob kale muhiim ah wuxuu yahay markaan rabno inaynu wax hirgelino inaynu wax aynu ka midho dhalayno insha Allah ta'ala sanadkan sanadada soo socota ee dambe inta badan waxaan hilmaanaa inaynu dib u raacaynu ku sameeyno halkaynu ka imanay inaynu dib u eegno halkaynu ku soconno iyo xaaladdan hadda ku jirno haddii aad doonayso markaa inay wax ku hirgalaan waxaa lagaaga baahan yahay inaad la socoto horumarkaaga halkay wax ku marayaan halkaad shalay ka timid halkaad ku socoto taasina waxay kugu hirgalaysaa in habeen walba markaad seexanayso ama subax walba markaad soo toosto wixii maalintii ka horreysay ama isla maalintaaba wixii kuu qabsoomay inaad qorato wixii aan kuu qabsoomin inaad qorato carqaladaha kugu iman inaad qorato arrimahaasi markaa waxay keenayaan inaad isla socoto iska ilaali in araggaaga uu ka fogaado wixii aad doonaysay inaad hirgeliso sanadkan haddii la yiraahdo marka buug baad samaysan kartaa xusuus qoro kala maalin walba aad ku qortid wixii aad rabtay iyo wixii ku hirgelay wixii aan ku hirgelin dadka qaar ba apps iyo mobile isticmaala dabadna mobilkaas wuxuu ku qoranay halka ku socdo iyo halka uu marayo mobilkaas kolba xasuusinaya si maalinta wixii looga rabay uu hirgeliyo marka waxa muhiim ah qodobkan ku leeyahay la soco horumarkaaga oo hay laabin iska ilaali inta sanadka bilowgiisa meel wax ku qorqorto sanadku markuu dhamaadana tiraahdid weesh waxba ima hirgelin qodobka ugu dambeeya markay nolosheen ku jirno waxa jira arrimo ay tahay inaad samaysid si aad u guulaysato ama aad u horumarto iyo arrimo ay tahay inaad iska jirto si aad horumarto marka waxa la yiraahdaa qabo
iyo ha qabanin, do's and don'ts, samee iyo ha samayninta, labadaas waa inay isu kaa barbar socdaan. Inta badan dadka xoogga waxay saaraan waxyaalaha la qabanayo, akhris badan samee, waxbarasho badan samee, cibaadadaada iyo naftaada ku dadaal inaad hagaajiso, ilaahay ku xidhnow, adkaarta badi, waxyaalihii la sameynayay inta badan xoogga ma saaraan waxyaalaha tii inaanad samayn, sida tusaalahaan oo kale macaasida oo kale, dunuubta oo kale, sida hurdada oo kale faraha badan leh, sida balwadaha oo kale. sidaa awgeed waxaa muhiim ah sanadkan si aad uga midho dhaliso haddii ilahay yidhaahdo waxa aad meel ku qorataa arrimaha ugu badan ee inta badan carqalada kugu ah. Maxaa ku haystaa? Maxaa inta badan aan ku hirgelin waxaad doonayso? Maxaa adiga ku haystaa? Ma dunuubiya macaasi baa kula hadhay? Ma hurdo badan tahay? Ma asxaab xun baad la socotaa? Ma balwad baad leedahay? waxyaalaha ku haysta ee iska jirta intaad meel ku qorto ku dadaal inaad kuwa aad ula dagaalanto sida cadowgaaga koobaad aad ula dagaalamaysid. Sidaa awgeed qodobkan wuxuu ku leeyahay waxyaalaha haytay inaan la samaysid guul gaadho iyo horumar intaad meel ku qorato mid ula xisaabtan kuna dadaal inaad ka midho dhaliso ama aad xal u raadiso mid wal oo ka mid ah qodobada. Halkaa waxaan kugu soo gudbiyey tiraba 4 qodob oo muhiim ah oo markaad doonayso inaad qorshayso sanadkan cusub aad doonayso sanadkan dhammaadkiisa inaad midho wanaagsan aad goosato carqalada kugu hor iman carqalado ka hor iman kara oo runtii ka hor istaagi kara guushaada aan kula wadaagay iyo sidaad uga badin lahayd. inuu haduu fiidiyogan ku tara asxaabtaada la wadaag comment wanaagsan ka bixi like tana kala bakhaylin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.